السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتي احترامك بدنات بانيني سلامينا سلانا دو قروح بدن بان هودا إني صومرينينا يكسو دوادا كنال كينا عافيماتك يدريالك عافيماتك نولوشا مقالك وحاين كسو قادرينا waxtarka iyo faa'iidada uu leeyahay ragga rumaanku waxtarka caafimaad iyo manaafacaadka caafimaad iyo nafaqada caafimaad ee raganimada iyo awoodda iyo jinsiyadda ee uu kobciyo rumaanku iyo qaabka loo qaato ama loo isticmaalo. muuqaalkani waxa uu jawaab u yahay waxa xilliyada qaar layna soo weydiiyaa cuntooyinka u fiican ama cabitaanka u wanaagsan dhinaca raganimada, taasoo markasta iyo xilli kasta aynu jecel lahay bulshadeena inaynu uga jawaabno. su-aashu waxa ay qusaysana aynu markaa jawaab u raadino. cuntooyinka ka qayb qaata dhinaca raganimadu way badan yihiin, waana kala duwan yihiin, helitaankoodana way ku kala xidhantay. markasta dadkeenu waxa ay yaqaanaan ama laga yaabo inay heli karaan baynu soo bandhignaa. haddaba rumaanku waxa uu leeyahay faytamiino iyo minerals iyo markaa substances u fiican awoodda raganimada, iyo inuu kobciyo dareeraha daranka, iyo inuu saru qaado markaa inuu ninku haado energizing, macnaheedu inuu energy siiyo oo amateed fiican u yeesho, inuu markaa uu samayn karo ama uu markaa awooddiisii raganimadu ay aad u kobci karto. rumaanka oo faa'iidooyinka uu leeyahay ay aad u badan yihiin ayaa waxaa la soo qaataa inuu 3 arrimood oo aad u waaweyn uu markaa tayo iyo caafimaad u leeyahay. kow, waxa uu kobciyaa hormoonada raganimada iyo taranka iyo jinsiyadda qayb buu ka qaataa, wuu badiyaa. qodobka labaad ee kale waxa weeyaan waa anti-age fruitka, waa cuntooyinka inta badan ka hortaga qofku inuu gaboobo ama uu qarbowshaa noqdo ama inay awooddiisu ay isku soo dhacdo isagoo qofkii aanay weli nambarka da-aadiisu aanay badnayn. waxa uu kaloo ka qayb qaataa rumaanku waxa uu u fiican yahay curuqaha iyo markaa nudayaasha iyo kala goyska iyo cartilage-ka iyo carshawaha inta badan ayuu u wanaagsan yahay. haddaba qaabka rumaanka aynu uga faa'iidaysanaynaa waa sida soo socota. muuqaalkeena dabcan muhiimadiisa ugu weyni waxa weeyaan ama ay jawaab u noqonaysaa in markaa ninku marka uu u baahan yahay inuu ka qayb qaato inuu aad u kobciyo ama uu saru soo qaado dhinaca raganimadiisa inuu ka cabbi karo oo isticmaali karo. qudaartani faa'iidooyinka mucjisada ah ay leedahay waxa kamida waxay tilmaamaan dhakhaatiirtu qofku haddii uu qaato muddo 7 cisho si constantly oo joogta qofku waxa ay ka bedeshaa muuqaalkiisana way bedeshaa, firfircoonida jirkiisana way bedeshaa, maskaxdana waxbay ka bedeshaa. maskaxdiisu qof xusuus badan oo active oo markaa inta badan concentrationkiisa iyo memorizationka intuba ay fiican yihiin buu noqdaa. yacni dhug buu yeeshaa oo waxa markaa loo sheego ma ilaawo. waxa uu yeeshaa markaa inuu xifdiyi karo wax iyo inuu xusuusan karo wax. haddaba mar hadday sidaa tahay qudaartani oo tayada ay leedahay oo faa'iidada ay leedahay oo manaafacaadka aadka u ballaaran ay leedahay, waxa aynu bulshada u soo bandhigaynaa gaar ahaan walaalaha inta badan su'aalahanna soo weydiinaya qofka heli karaa inuu qaabkan u qaato sida loo isticmaalo ee rumaanka loo isticmaalo. waxa kowka qofku inuu soo qaato oo dhammaantiiba marka uu midhaha hoose intuu la soo baxo galka iska saaro uu ridqo shiido. waa markaa ay ugu wanaagsan tahay cabitaan laga dhigto ee weliba qofku xilliga subaxii uu markaa ku iftaaro ama uu ku afka ku qabto oo cabo. dhakhaatiirta qaar bay aaminsan habeenkii in la cabi karo oo la sii qaadan karo oo runtii iyaguna waa mid mubaax oo ku bannaan, laakiin xilliga maalintii ama subaxii ayaa aad la isku waafaqsan yahay inuu manaafacaadkiisu aad u badan yahay. waxa u shardiya inuu markaa si fiican u bislaado, oo markaa aanu si fiican u bislaanin ma qurux badna la iskulamana taliyo. xilliyada qaar waxa uu yeelan karaa substances laga yaabo qofka inay qofka aanay u fiicnayn ama inay caloosha aad u socodsiiyo, waayo waxa uu ka mid yahay qudaarta inta badan galka iyo gas kale. haddaba muuqaalkan xilliga uu bislaado cabitaan iyo juice aad ka dhigata rumaanka ayaa tayo fiican iyo awooddaada raganimada ka qayb qaata, da-aadda kaa celiya, caafimaadka jirka iyo dhaqdhaqaaqa firfircoonidaadana ka qayb qaata, kobciyo nudayaasha jirkeena. maadaama ay taa tahay qofku inuu ku dadaalo oo uu ogaado
inuu qaybtaa wax badan ka kafeeyo ama uu ka tara ayaa muhiima. intaas ayaynu kusoo ururinaynaa muuqaalka. waxaa su-aale qabtaa noo soo sheega, waa idinka soo jawaabi doonaaye. fii amaani illah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.